xogo dheeraad ah ayaa ka soo baxaya in saraakiishii la soo shaqaysay madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay qaarkood bilaabeen in dalka isaga baxaana. saraakiishan ayaa la tilmaamay inay sii ogaadeen inay xilka weyn doonaan isla markaana dowladda cusub ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud aysan xilligan u magacaabi karin jago kale sababta oo ka dhigan inay dalka isaga baxaan badankooda. waxaa la sheegay in saraakiishan qaarkood ay gaareen dalka Turkiga halkaas ee xubno kale ay ku sugan yihiin. toddobaadii la soo dhaafay waxaa dalka Turkiga gaarayay saraakiil ka tirsan qaybaha kala duwan ee ciidanka kuwaas oo xiriir dhow la lahaa dowladdii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kuwaas oo ka baqdin qabo in su'aalo iyo xilka qaas lagu sameeyo. xubnaha dalka isaga baxay waxaa ka mid ah taliyihii qaybta booliska gobolka Banaadir gaashaanle sare Farxaan Maxamuud Aadan Farxaan Qaroole oo dal ku yaala qaaradda Yurub iska dhiibay. xogta hoose ee la helayo ayaa waxay tilmaamaysaa in Farxaan Qaroole uu gaaray dalka Belgiumka isagoo ay u badan tahay inuusan dalka ku soo laaban dhawaana loo soo magacaabi doono sargaal kale xilka uu hadda hayo. dhanka kale waxaa socda qorshe isbeddel ay dowladda cusub ay ku sameynayso saraakiisha hoggaanka ciidamada sida taliyaasha kan booliska kan militariga qaybta booliska gobolka iyo taliska asluubta. inta badan saraakiisha ciidamada ayaa lagu dhaliilay u dhexmeelanka siyaasadda maamulkii hore madaxweyne Farmaajo iyadoo hadda laga yaabo in shakhsiyaad cusub la soo magacaabo. waxaa jirta baqdin ay qabaan inta badan saraakiishii ka agdhoweed maamulkii Farmaajo ee tartanka doorasho looga adkaaday kuwaas oo hadda fircad ka ah dalka. dhanka kale taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya Janaan Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa wala tilmaamaya in ay soo baxday wareegtadii xilka looga qaadi lahaa isagoo hadda ku sugan dalka Itoobiya halkaas uga qayb galayo shir heer caalami ah. taliyaha Xijaar ayaa ka mid ahaa xubnihii aadka ugu dhowaa madaxweyne Farmaajo isla markaana dhowr mar isku dayay inuu shirqoolo ka geysto Muqdisho kuwaas ay ku jiraan xubno sare oo hadda dowladda madax ka ah. dad badan ayaa waxay isweydiinayaan halka uu sal dhigan doono geediga ee wadaan saraakiishii la soo shaqaysay madaxweyne Farmaajo iyo isbeddelka hadda uu wado madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ku aadan sidii uu xilalka cusub ugu magacaabi lahaa xilalka hadda ay hayaan taliyaasha ciidanka qaybahooda kala duwan. gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Marwo Sacdiyo Yaasin Xaaji Samatar ayaa markii ugu horeysay taariikhda dalka Soomaaliya ka noqotay kusimaha madaxweynaha Soomaaliya kadib markii ay safaro kala duwan ay u amabaxeen madaxweynaha Soomaaliya iyo gudoomiyaha baarlamaanka. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa u safray dalka Imaaraadka Carabta kadib markii dhigiisa dalkaasi uu ka helay martiqaad inta uusan madaxweynaha ka safrin garoonka diyaaradaha Aadan Cadde waxa uu la kulmay gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee golaha shacabka Sacdiyo Yaasin Xaaji. tani waxay imaanaysaa kadib markii uu gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Madoobe uu shalay safar dalka Kenya ah uu ku tagay halkaas una madaxweynaha maanta u safray dalka Imaaraadka Carabta sidaasna ku noqotay kusimaha madaxweynaha Soomaaliya xildhibaan Sacdiyo Yaasin Xaaji Samatar ayaa 22kii bishii Abriil ee sanadkan loo doortay gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee golaha shacabka iyadoo noqotay taariikhda Soomaaliya haweeneydii ugu horeysay ee ka mid noqotay gudoonka golaha baarlamaanka Soomaaliya. Sacdiyo oo noqonayso haweeneydii ugu horeysay oo xil ka qabata heerka la-eg dalka Soomaaliya iyadoo dad badan ay hadda isweydiinayaan maadaama aysan taariikhda hore uga dhicin in haweeney ee Soomaaliya madax ka noqoto. waxaa la tilmaamay inta muddada ay maqan yihiin gudoomiyaha golaha shacabka iyo waliba madaxweynaha Soomaaliya inay xilka ay sii hayn doonto. Soomaalida ayaa dhaqan ahaan waxay caan ku tahay inaysan dumarka u aqoon inay hogaamiyaan. Sacdiyo ayaa hadda u muuqatay inay noqonayso haweeneydii ugu horeysay ee xilka kusimaha madaxweynaha ka qabata Soomaaliya. maalmihii la soo dhaafay waxaa jirtay dood ka taagneed diyaaradihii aadi jiray gobolka Gedo oo laga hor istaagay badankooda. waxay kadib ay qaateen shirkadaha inay joojiyaan duulimaadyadii ay samayn jireen iyadoo khilaafku uu ka yimid markii siyaasiyiin ka soo jeeda gobolkaasi loo diiday inay tagaan gobolka. guddiga maamula diyaaradaha ayaa dhankooda sheegay
in laga bilaabo maanta ay joojinayaan dhammaan duulimaadyadii gudaha dalka Soomaaliya. Guddiga ayaa waxay sheegeen inay ka cabanayeen hubanti la'aanta amniga diyaaradaha. Maamulka diyaaradaha ayaa waxa ay tilmaameen in hay'adda duulista rayidka ay ku guuldareysatay xoojinta amniga garoomada. Dhanka kale, war ka soo baxay hay'adda duulista rayidka Soomaaliya ayaa been abuur lagu sheegay war lagu faafiyay baraha bulshada. Hay'adda duulista rayidka Soomaaliya ayaa war ay ka soo saartay cabashada shirkadaha diyaaradaha ay ka muujiyeen badqabka garoomada Soomaaliya qaarkood ay keeneen inay duulimaadyada joojiyaan. Hay'addu waxay tilmaamtay inay ka mas'uul tahay badqabka dhammaan duulimaadyada iyo garoomada Soomaaliya, iyadoo dhanka kalena sheegtay inayna jirin wax khatar ah oo badqabka duulimaadyada dalka gudihiisa ah. War-saxaafadeedka si wada jir ay u soo saareen dhammaan madaxda shirkadaha diyaaradaha ka howlgala gudaha Soomaaliya ayaa lagu sheegay maalintii shalay in hay'adda duulista rayidka ku guuldareysatay xaqiijinta amniga garoomada, taasina ay ku kaliftay inay ku dhawaaqaan shaqo joojina. Dhanka kale, warar hoose oo aan helnay ayaa tilmaamaya in agaasimaha NISA Maha Salaad uu hanjabay diyaaradaha gobolada dalka Soomaaliya u duuli jiray, kuwaasi oo shalay sheegay in shaqo joojin ay sameynayaan. Hanjabaad ka timid agaasimaha NISA Maha Salaad ayaa lagu fasaxay duulimaadka diyaaradaha ee gobolada dalka oo ay maanta joojiyeen guddiga diyaaradaha. Agaasimka hay'adda NISA xog ka madax bannaan oo la helay ayaa dhanka kale guddiga diyaaradaha warkan xaqiijiya ayaa waxa ay sheegeen in haddii NISA aysan soo hadli lahayn ma dhacdeen in maanta diyaaradahu ay aadaan gobolada Soomaaliya, iyadoona hadda dib loo fasaxay isla markaana duulimaadyada diyaaradaha ay hadda maanta hayeen kuwa si caadi ah kadib markii agaasimaha hay'adda NISA Maha Salaad uu ku hanjabay in uu tallaabo ka qaadi doono shirkadii go'aankaasi qaadata, taasi oo ay tilmaameen inay dhibaato cabrun ay ku tahay madaxbannaanida shirkadaha maxalliga ee ka howlgala gudaha dalka Soomaaliya. Maha Salaad waxa uu sheegay in shirkadii duulimaad sameyn weysa maanta in tallaabo sharciga waafaqsan ka qaadi doonaan ciidanka NISA, balse ma soo hadal qaadin waxyaabaha laga yeelayo garoomada shirkadahan ay markii hore cabashada ka gudbiyeen oo qayb ka tahay garoomada ku yaala gobolka Gedo. Dad badan ayaa waxay isweydiinayaan qaabkee ayuu Maha Salaad u wajihi doonaa cabashada ka timid garoomada gobolka Gedo ku yaala oo markii horeba sababay in diyaaradahan ay go'aankan markii hore qaataan.